الله منا ومنكم عيد مبارك علينا وعليكم. waxaa maanta loo dabaaldegay munaasabadda maalintii koowaad ee ciid ulfitri inta badan geega Soomaalida ay degto halkan waa magaalada caasimadda ee Muqdisho farxadda qodxaalay xaafadda Carafaad ee degmada Yaaqshi waxaa isugu soo baxay boqolaal dadweynaha kuwa wanka ku oogay salaada ciid ulfitri. Sheekh Cabdiraxmaan Guuled oo ah imaamka deegaanka ayaa salaada ka tujiyay fagaaraha waxaana sheekhu salaada kadib halka uu ka akhriyay khudbada maalinta ciida. وتمكينهم من اجتماع بفضائلهم وشغل اوقاته بالطاعات والقربات فان الفرح هو الفرح المشروع واما الفرح يمضي بها العيد. kadib socdaal kooban aan ku dhexmaray fagaaraha salaada kadib dadka halkaan kula kulmo waxaa qayb ka ahaa Muxudiin Maxamed Cumar MMC oo kamid ah dhalinyarada magaca iyo maamuuskaba ku dhexle magaalada caasimadda ee Muqdisho. dhanka kale meelaha sida aadka looga dareemay fartasiyaha iyo dabaaldega maalinta koowaad ee munaasabadda ciid ulfitri waxaa qayb ka ah 17 degmo ee gobolka Banaadir. qaar kamid ah dhalinyarada haldoorka ee deegaanka ayaa kula kulmay fagaaraha ciid kadib waxayna halkaas hambalyo iyo bogaadin uga jeediyeen ummadda Soomaaliyeed iyagoo si khaas ah ugu hambalyeeyay asxaabta ku xiran Saadaq Soomaali official. bismillah magaciisa maxamed cabdi asxaabta Saadaq Soomaali waxa leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair. أصحاب الصدق الصومال بحرم وحنا لها مبارك كل عام السلام عليكم. هذا خيرته سلامينا هذه تجربه على لنا ويلكم مبارك كل عام وانتم بخير. أنا وانا على صدق اوفيشال ويلكم على لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصومال كل عام وانتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان جنرال صادق الصومالي دمان أصحاب كلهم عليها كل عام وأنتم بخير عيد ونكمل والبجوكتان أوي السلام يا دمانتنا السلام عليكم ورحمة الله. Sheekh Maxamed Cabdi Asad oo kamid ah culimada Soomaaliyeed kuwooda loogu jecel yahay ayaa ka hadlay maalintan ciida iyo waxyaabaha looga baahan yahay ummadda muslimiinta ah. Sheekha oo u duceeyay ummadda muslimiinta ah kuwooda sooman iyo kuwa maanta afran intaba in Allah uu ka aqbalo ayaa kelimad kooban uu siiyay Saadaq Soomaali official waxa uu yiri والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. maanta waa maalin ciid ah waa maalintii ciid ulfitr maxaan ku raadayay nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa ka sugnaaday ciidda waa maalinta dadku ay ciidayaan duxaduna waa maalin dadku ay duxaysanayaan marka haddii mu'min dadku ay ciidaan maxaan ku raadayay waa ciid marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala ciid Allah naga aqbalo ciid Allah naga aqbalo waxaa ciid loo jideeyay duco iyo maxaan ku raadayay in la ducaysto oo la is salaamo oo la is duco taqabbal Allah minna salih al-a'mal oo la is ziyaarto oo adkaar iyo maxaan ku raadayay adkaartii iyo quraanka iyo la sii wado oo ayaan akli wa shurb la faraxsanaado loo jideeyay lahaw maxaan ku raadayay in filan la iska duuduubo iyo meelaha in la iska qaawiyo rag iyo naawi ay isdhaxyaacaan iyo maxaan ku raadayay ciyaaro oo fiska in la ciyaaro iyo loo jideeyay marka jazakallahu khayr jazaa waxaan leenahay taqabbal Allah minna salih al-a'mal dhammaan muslimiinta ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ka aqbalo maaragtay soonka ay soo soomaayeen ay khatimeen maxaan ku raadayay dowladaha maanta Soomaaliya maalin kale ayuuna bariin afra laga yaabana Allah ayuuna ka aqbalo dhammaanteen waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala taqabbal Allah minkum
وتقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. هذه ما تنتهي وجزاكم الله خير الجزاء. ugu dambeyn waa Saadaq Cabdullaahi Axmed Saadaq Soomaali oo leh kullu caam wa antum bikhayr ciid mubaarak sanadkan sanadkiisa caafimaad iyo cibaado suuban Allah nagu gaarsiiyo. عيد مبارك.